Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaynu qaadan doonaa casharkii sideedaad ee maadada xisaabta soo kale tobnaadka. Cashka hore waxaan kusoo baranay division of complex number, sida laisku qaybiyo complex number. Waxaan kasoo qaadanay hal tusaale. Tusaalaha waxaan ka bilaabi doonaa casharkan tusaalaha 11aad ee chapterka labaad. waxaa la find the real and the imaginary parties of the number. Waxaa soo raadisaa qaybta realka ah iyo qaybta imaginary partiga. Soo raadi example-kan. waxaa la siiyay z plus of the number of z plus 1 of z ayaa waxaa la rabaa inaad kasoo saarto. Su-aashana la siiyay waxaa la rabaa inaad kasoo saarto real party iyo imaginary party. Marka z-na qiimaheeda waa 2 plus i oo loo qaybiyay 1 minus i. 2 plus i oo loo qaybiyay 1 minus i. Markaan example ka shaqeynayno wuxuu qaadan doonaa saddexdan qaybtan iyo qaybtan. Marka waxaa laga rabaa inaad si fiican aad u daawato oo u fahanto. Wuu fudud yahay laakiin xoogaa wuu dheer yahay. Sidoo kale buugga aad u soo koobaa. Marka waxaan rabnaa inaad si fiican aad u fahanto waan faahfaahino saad qof kasta u fahmo. Marka waxaan maraynaa saddex step. Step ka horeeya aan marayna waxaa waaye waxaan ku sareynaa simplify z. Waxaan fududeynaynaa z xarafka z qiimihiisa ma naqaano. Marka kanaan soo helaynaa marka hore z baan raadinaynaa. z markaan raadinayno waxaan ka dhex raadinaynaa qaybtan oo 2 plus i oo loo qaybiyay 1 minus i. waxaan sameynaysaa markaa z waxaa la mid tahay 2 plus i oo loo qaybiyay 1 minus i. Intaa kadib 1 minus i-dan oo conjugate ah ayaan conjugate ka dhigaynaa 1 minus i-dan. 1 minus i-da ayaan conjugate ka dhigaynaa. Marka conjugate marka la dhigo waxay noqonaysaa marka calaamadda oo minus ayaan u bedelaynaa plus. Marka hore qaybta su-aasha soo qaado 2 plus i oo loo qaybiyo 1 minus i. kadib intan hoose oo 1 minus i-da ayaan conjugate ka dhigaynaa. Conjugate waa faahsantahay, waa soo qaadanaa casharkaasi. cashar gooni kusoo qaadanaa. Markaas haddaa soo daawo. Marka kaas haddaa fahmin kan ma fahmaysid. Marka 1 minus i-dan plus ka dhig meeshan oo minus ah. kadib kor ku dhufo hoosna ku dhufo iyadoo plus ah. 1 plus i noqotay loo qaybiyay 1 minus i. Intaa kadib qaybtan labada qayb ayaa isku dhufanaysaa. labada qayb sidoo isku dhuftana cashar horaan kusoo qaadanay. waxaa sameynaysaa marka 2-dan ayaa waxaa ku dhufanaysaa qaybtan. 2-dan waxaa ku dhufanaysaa qaybtan. marka waxay noqonaysaa 2 plus 2 luftay 1 plus i. haddana 1-kan ayaa ku dhufanaysaa isla qaybtan. waxay noqon marka i-da meeshan i-dan waxaa ku dhufanaysaa 1 plus i-dan loo qaybiyay daysaa. kadib 1-kan waxaa ku dhufanaysaa qaybtan hoose oo conjugate kasoo dhignaa ku dhufanaysaa. waxay noqon 1 lagu dhuftay 1 plus i. haddana minus i-dan ayaa waxaa ku dhufanaysaa isla qaybtan. waxay noqotay marka 1 plus i. intaa kadib waxay noqonay 2 waxaa ku dhufataa 1. waxay noqonay 2. haddana 2 waxaa ku dhufataa i ayaa 2i. haddana plus soo qaado i waxaa ku dhufataa 1. waxay noqonay waa i oo 1 qarsoon lama qoro. haddana i-da waxaa ku dhufataa i kale. waxay noqonay i laba jibaaran. qaybta hoose imow 1 waxaa ku dhufataa 1 ku dhufo waa 1. haddana 1 ka waxaa ku dhufataa i waxay noqonay i minus soo qaado 1 i-dan iyo 1 ka isku dhufo waxay noqonay i. haddana waxaa soo qaado minus-tan iyo plus isku dhufo waa minus. i-dan iyo i isku dhufo waa i laba jibaaran. intaasna fahantaan rajeynaa. haddana waxaa sameynaysaa 2-dan soo qaado. waa soo qaadanay 2i iyo i-dan isku dar oo i-dan waxa qarsoon hal oo qarsoon isku dar waxay noqonaysaa 3i. kadib i laba jibaaran waxaa kusoo sugnay inay minus 1 la tahay inay minus 1 tahay. kadib minus 1-tan minus iyo minus isku dhufo minus iyo plus isku dhufo waa minus. 1-kana soo qaado marka waxay noqonay minus 1. qaybta hoose imo 1-kan iyo waxaa isku dartaa 1 karta soo qaado. kadib plus i-dan iyo minus i-dan waa isla bixi sababtoo waa eber waa kala calaamad. marka hal iyo hal ka jar waxay noqonay eber. waxaa haysta meeshan i laba jibaaran waxay noqonay waxay la mid ahayd minus 1. minus-tan iyo minus meesha ku taala isku dhufo waxay noqonay plus. kadib waxay noqotay plus 1. intaa kadib waxaa sameynaysaa 2-dan iyo ka jaraysaa 1-kan. 2 waxaa ka jartaa hal waxay noqonay hal plus 3 ay soo qaado. waxaa sameynaysaa haddana hal ku dar waa 2. hal ku dar waxaa waaye 2. intaa kadib intaas jawaabta waa ku ekin kartaa oo ka shaqeysay. laakiin waxaa la rabaa inaad qayb real iyo qayb imaginary party ah
aad ka dhigto marka waxay noqonay wankan tuudan oo hooseeya qaybtana way leedahay qaybtana way leedahay macnaha waxa waaye u kala qaad waxay noqon marka 1 oo loo qaybiyo 2 oo lagu dar 3 i oo loo qaybiyo 2 macnaha waxa waaye tuudan qaybta kore oo 2 baarti ama 2 teerama way wadaagtaa marka waxay noqon 1 oo loo qaybiyo 2 oo lagu daray plus 3 i oo loo qaybiyo 2 inta hadda waxaan soo helay su-aashii ahayd waxaan fududeynay zed baan fududaantay waxaan haysanaa marka qiimaha zed waxaa noo soo baxay 1 oo loo qaybiyo 2 oo lagu daray 3 i oo loo qaybiyo 2 haddana step ku xiga waxaan raadinaynaa find waxaa lahayd waxaan raadinaynaa zed oo minus 1 ku jibaaran macnaha hal oo loo qaybiyo zed 1 oo zed ay raadinaynaa 1 oo zed waxay ka timaaday su-aasha ku jirta hadda waxaan soo helnay qaybtan zed qiimaha waxaan haysanaa oo waxaa noo soo baxay 1 oo loo qaybiyo 3 1 oo loo qaybiyo 2 plus 3 i oo loo qaybiyo 2 hadda waxaan leeyahay marka 1 of z inaan soo helo qiimaheeda kadib waxaan soo heli karnaa real iyo imaginary party ayaan soo heli karnaa marka waxaan sameeynaa 1 of z waxay la mid tahay 1 oo loo qaybiyo z waxay la mid tahay 1 ka soo qaado z waxaan soo heshay inay la mid tahay hal oo loo qaybiyo 2 oo lagu daray 3 i oo loo qaybiyo 2 oo ku bedelo z dan oo soo heshay oo ka soo shaqeynay ayaan la ku bedelin zedka aan soo helnay ayaan ku bedelnay oo waxaan soo helnay hal oo loo qaybiyo 2 oo lagu daray 3 i oo loo qaybiyo 2 intaa kadib waxaan sameynaysaa waxaan rabnaa inaan meesha ka tuudan oo hooseeya inaan meesha ka saarno marka waxaan ku faynaa 2 aan ku faynaa qaybta kor ku dhufo 2 qaybta hoosena 2 ku dhufo 2 macnaha hooseeya oo fractionka aan jajabka ee maxaa rabnaa inaan meesha ka saarno marka halkan 2 ku dhufanaysaa dhankan waxaan ku faynaysaa 2 waxay noqotay marka 2 koryaa 2 ku fanay hooseeyana waxaan ku fanay 2 waxaa sabax marka tuudan iyo waxa sabaxad iyo tuudan maxaa meesha ku soo haray hal plus 3i korna waxaa ku soo haray 1 waxaa ku fataa 2 waa 2 meeshan maxaa sameynay tuudan kor ku dhufanay hoosna 2 ku dhufanay sababta waxaa waaye waxaan rabnaa inaan jajabka hooseeya ah inaan meesha ka saarno marka tuudan iyo saddexdan 2 waa isla bixi marka waxaa meesha noo saaray 1 plus 3i noo saartay kadib 1 plus 3i dan waxaan u bedelaynaa conjugate plus waaye minus ka dhig marka minus ka dhigto kor ku dhufo hoosna ku dhufo kor ku dhufatay hoosna ku dhufo meeshan oo conjugate ka oo 1 plus 3 ayda conjugate aan u bedelay calaamad plus ay waxa ka dhigay minus kadibna kor ku dhufo hoosna ku dhufo intaa kadib waxa ku soo ku dhufasho marka waxa sameynaysaa 2 dan waxa ku fanaysaa 1 kan iyo minus 3i 2 oo lagu dhuftay 1 minus 3i haddana waxa sameynaysaa 1 kan oo hore ayaa ku fanaysaa qaybta dambe waxaa marka 1 lagu dhuftay 1 minus 3i haddana plus 3i dan oo dambe ayaa ku fanaysaa isla qaybtan waxay noqon marka 3i oo lagu dhuftay 1 minus 3i intaa kadib waxaa sameynaysaa 2 waxaa ku fataa 1 waxaa waaye 2 haddana 2 waxaa ku fataa minus 3i waa minus 6i qaybta hoose imo 1 ku dhufa waa 1 haddana 1 ka waxaa ku fataa minus 3i waa minus 3i haddana plus 3i waxaa ku fataa 1 waa plus 3i haddana 3 iyo 3 isku dhufo waa 9 i isku dhufo waa i loo jigaaran intaa kadib waxaa sameynaysaa marka qaybta kore iska soo qaado waxa laga jaray lagu daro meesha ma taalo qaybta hoose imo qaybta hoose shaqo ka qabanayna marka waxay noqonaysaa marka 1 kan soo qaado 1 ka hore soo qaado waa soo qaadanay kadib minus 3i dan iyo minus 3i dan isla bixi sababtoo ah waa 3 ka jar waa eber i ka jar waa isla eber marka meesha dhan waa isla bixin eber ma soo baxday minus 9 tan ayada isku warkan waxa u bedeshaa minus 1 u bedel kadib minus 1 kan minus tan iyo waxa ku bataa minus tan waxay noqotay plus minus isku dhufo waa plus hay 9 soo qaado marka kadib waxaa sameynaysaa qaybta kore sida soo qaado 1 ka iyo 9 ka isku dar waa 10 inta kadib waxaa sameynaysaa marka u kala qaad 10 kan qaybtan waa leedahay qaybtan waa leedahay marka waxay noqonay 2 oo loo qaybiyay 10 minus 6i oo loo qaybiyay 10 wax kale ma sameynay 10kii la u kala qaadnay macnaha laba term oo 2 term oo gooni waay 6i oo term gooni ah marka u kala qaad waxay noqonaysaa 2 oo loo qaybiyay 10 oo laga jaray 6i oo loo qaybiyay 10 kadib waxaa sameynaysaa 2 10 u qaybi waxa waaye laba qayb waxay noqonay hal kadib waxaa sameynaysaa laba qaybi laba qayb waa hal 10 waxaa qaybisaa 2 waa 5 laga jaray 6 waxaa qaybisaa 2 qaybi waa 3i haddana 10 waxaa qaybisaa 2 waxaa ku soo bixi 5 marka jawaabta waxay noqotay hal oo loo qaybiyay 5 oo laga jaray
saddex i oo loo qaybiyey shan waxaa soo helna marka qiimaha one over z aan soo helnay qiimaha z one over z aan soo helnay stepka xiga u dambeeya waxaa waaye waxaan isku daraynaa z plus one over z zkii aan soo helnay oo qiimaha kan ah ayaa waxaan ku daraynaa qaybtan oo z one over z ah ama hal oo loo qaybiy z waa isku daraysa marka waxaa samaynaysa marka qaybta hore z waxaa soo heshay qaybta z keliya waxaa soo heshay inay ahayd one loo qaybiy two haatana one loo qaybiy two oo lagu daray three i oo loo qaybiy two waa ku bedelanay haye z one over z waxaa soo heshay one over five oo laga jaray three i oo loo qaybiy shan one over five oo laga jaray three i oo loo qaybiy shan intaa kadib waxaa samaynaysa marka hadda su-aasha lagu daray marka hore waxaan samaynayna marka real wixii real ah ayaa isku keenaynaa maxaa real ah combine real parts waxaa isku aadisaa ama isku keentaa qaybta real party marka real party waxaa qaybta hore oo xarafka ayaan wadanin qaybta hore marka waxay noqonay one loo qaybiy two oo lagu daray qaybtan oo one oo loo qaybiy five one loo qaybiy five qaybta waxaa marka real intaa kadib waxaa samaynaysa marka two iyo five tan maadaama ay ku dartay fraction ah qaybtan hoose waxaa u raadinaysa LCM marka laba iyo shan LCM waxaa waaye toban kadib tobankan waxaa u qaybisaa labo toban marka laba loo qaybiy waxay noqonay shan shan waxaa ku fataa hal waa shan lagu daray leh toban waxaa u qaybisaa shan waa labo laba hal ku dhufo waa labo kadib shan laba ku dar waa toddoba oo loo qaybiy toban marka waxaa soo heshay qaybta realka ah shan toddoba oo loo qaybiy toban kusoo baxay sidoo kale qaybta imaginary party ayadana isku aadi waxaa qaybta dambe oo i wata waxay noqon kartaa three i oo loo qaybiyey two oo laga jaray three i oo loo qaybiyey five qaybta hore two iyo five LCM raadi waa toban tobanka waxaa qaybisaa labo toban labo qaybi waa shan shan kor ku dhufo shan saddex ku dhufo waxay noqoni shan iyo toban i laga jaray dheer toban waxaa qaybisaa labo toban waxaa qaybisaa shan waa labo labo kor ku dhufo waa saddex ah waxay noqoni lix i kadib shan iyo toban waxaa ka jirtaa lix waxay noqoni sagaal i oo loo qaybiyey tobanka hooseeya ayadana waxaa soo heshay qaybtii oo imaginary party ah marka su'aashaas aan ka shaqeynay saas qaabkaas oo shaqeynay waxay noqotay qaybta realka noo dirxayd waxaa jawaabta soo bixi toddoba oo loo qaybiyey toban qaybta imaginary party waxaa soo bixi sagaal i oo loo qaybiyey toban marka sidaas darteed waxaan leenahay real party of z plus one over z waxay noqoni toddoba oo loo qaybiyey toban imaginary party of z plus one over z waxay noqoni sagaal i oo loo qaybiyey toban waa marka waxay noqonaysa su-aashii noo diray soo hel real party imaginary party saasaas oo shaqeynay tusaalaha labaatanaad waxaa waaye alla writing a quotient of complex number ku saabsan yahay si loo isku qabiyo marka waxaan la siiyey two plus three i la siiyey oo loo qaybiyey four laga jaray two i waxaa rabaa inaad u qorto u qaybi inaad ahaan oo shaqeyso waxaa samaynaysa marka qaybta hoose oo four minus two i da ayaa waxaa ka dhisaa conjugate calaamada ka bedeli kadib kor ku dhufo hoosna ku dhufo waxay noqotay marka two plus three i oo loo qaybiyey four minus two i aa soo qaatay kadibna qaybtan hoose conjugate ka dhig calaamada ka bedel kadib kor ku dhufo hoosna ku dhufo inta kadib waa ku dhufashee isku dhufo marka waxaa samaynaysa marka twodan waxaa ku fanaysaa twada oo hore waxaa ku fanaysaa qaybta dambe oo four plus two i da haddana plus three i dan ayaa waxaa ku fanaysaa isla qaybtii oo four plus two i da qaybta hoose imaamkeeda fourta waxaa ku fanaysaa qaybta dambe oo ah four plus two i minus two i waxaa ku fataa four plus two i inta kadib isku dhufo marka waxaa isku fataa marka two waxaa ku fataa afar waxay noqonaysa sideed plus dheh haddana laba waxaa ku fataa labo waxay noqonaya afar i plus dheh saddex waxaa ku fataa afar waa toban iyo laba i haddana saddex waxaa ku fataa two waxay noqonaya lix i ku dhufo i loo jibaaran hoos imow afar afar ku dhufo waa lix iyo toban plus dheh afar labo ku dhufo waa sideed i laga jara dheh two i waxaa ku fataa afar waa sideedii i da kadib minus tan iyo balastan isku dhufo waa minus laba labo ku dhufo waa four i ku dhufo waa loo jibaaran kadib waxaa samaynaysaa qaybta sideeda soo qaado kadib waxaa samaynaysaa afartan iyo toban iyo laba isku dar waa toban iyo lix i isku warana bedel i isku waran waxay xiran tahay minus one marka minus one kan iyo balastan isku dhufo minus one ka iyo balastan isku dhufo waa minus six kadib hoos imo lix iyo tobanka soo qaado kadib sideeda i da iyo sideed i oo minus ah isla bixi sababtoo ka jarmi waa ever kadib waxaa samaynaysaa i isku war waxaa udashaa minus one ka waxaa fataa minusan waa plus four bkaan noqonay hoos waxaa kasbixi plus four kadib waxaa samaynaysaa marka
sideetan iyo lixdan kala jar waa labo, toban iyo lix ayna soo qaado hoosna waxaa imaadaa toban iyo lix iyo afar isku dar waa labaatan. Kadib u kala qaad marka waxay noqotay marka labo oo loo qeybiyo labaatan macnaha labaatankana u kala qaadaysaa qaybta kore oo labada gooni u leedahay toban iyo lixna gooni u leedahay laba loo qeybiyo labaatan oo lagu daray toban iyo lix ay oo loo qeybiyo labaatan. Kadib laba qaybi waxay noqonaya hal labaatan labo qayb waxaa toban balaas dheh toban iyo lix waxaa qaybisa afar waa isla afartii kadibna labaatanka waxaa qaybisa afar waa shan. Marka waxaa kusoo baxay hal oo loo qaybiyey toban oo lagu daray afar ay oo loo qaybiyey shan.